Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacayga Yasmiin waaye. Kusoo dhawow caafimaad fiican. Haddaa igu cusub tahay fadlan subscribe garayso. Gambaleelka kuu soo baxaana nashiiso. Insha Allah waxaan soo saara magafi doontid haddii Ilaah yiraahdo. Alxamdulillaah waxaan ku jirnaa waqtigii jawiyaasha isbedelay oo qabowna bilaabanayo. Geedihii kala nooc cusub bedeleen, cagaarkii tagay oo dhammaan rabo jaale kafee iyo ka dhan waxay noqdeen maasha Allah tabaarakallah. Marba si isu bedelaa soo maha labadoo bilaa waxay nooga dhiman tahay waqtigii barafka jawigiina adinka waram reer Soomaaliya waa idin salaamay si gooni ah idin salaamay maasha Allahna waa idin leebgas sababtoo anaga qoraxda naga tagooso adinkana qoraxdiina qabtiin maasha Allah Allah idin siisaa idin barakeeyo inta kasto bani aadan la socotana meel al meesha joogtiin Allah idinku badbaadsho wixii khayr ahna Allah idin siiyo aamiin yaa rabbi. Maanta videogeena waxaan ka hadlayaa markasta waxaa la yidhaahdaa Yasmiin see aan mataqaana aan ninkeyga ku hayaa see aan gurigeyga iiga dumin su'aalo waxaa markasta la ii soo weydiiyaa ku saabsan cidda maxaa waaye familiga ku saabsan marka insha Allah maanta videogeena marka waa sii dhexgalaynaa waana hadlaynaa haddii Ilaah yiraahdo. Markastana aniga gabdhaha Soomaalida sida anigoo kale walaalaha waxaan ku waaniyaa gurigiina waa inaan ku dadaalno in aan dhaqanno. Waxaa la yiri diinta waxay leedahay gurigaaga waa in ku noqoto jannuskeedaha ku noqoto maasha Allah. Marka gurigeena waxaan rabnaa inuu janno noo noqdo buuq la'aan qaylo way dhacee buuqna wuu dhacaa dagaalna wuu dhacaa waana la isqabanayaa laakiin waxaa loo baahan yahay sabar. Guri maxaa lagu dhaqaa sabar haddaan la kala roonaanin roob ma da'ay tiri Soomaali wax alle waxaa haysato nadiifso markasta aan dhahaa qalbigaaga waa inuu ku nadiif ahaadaa gurigaaga wixii jalmad yar kuu taalo waa inaad nadiifsato xijaabkaaga haddaa 2 xabo qabto labadii habeenkii markaa seexanaysa dhaqo waro waxa la waxaaga samayso tashuushka haddaa iska dhaafto gurigaaga waa inuu ku noqdo janno soo ku noqona dadaal loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay is-aamin waxaa loo baahan yahay sabar waxaa loo baahan yahay in la kala roonaado dadka tashuushka wada markasta aan dhahaa laga sikado buuq niyada wax kasta buuqa markasta lagu jiro carabi ilka waa isqabtaan waa loo baahan yahay in wax la isku qabto oo laga heshiiyo laakiin heshiis hadii lagu heshiinaynin oo guriga furtaanba lagu boodayo guriga ma dhaqmaayo guri haddii aan la kala roonaanin. Anigana markasta waxaan dhahaa gabdhahaan la hadlaa laakiin raggana way ku jiraan labada qofba way ku jirtaa sababtoo ah guriga hal qof kaligiis ma dhisi karo labada qofba waa inay isla dhisto marka gurigaaga see janno looga dhigaa waxaa looga dhigayaa in aad ismaamusho waxaaga yarka haddii biil lagu siiyo biilkaaga aad ka yaryareysatid ninkaaga wuxuu ku keenay aad dhaqaalaysatid maradaada yarta aad dhaqatid ilmahaaga aad mataqaana wajiga ka dhaqdid sanka haddii wax ka saaraya ka nadiifisid xusulladaada adiga iska nadiifisid saliid marso subag marso kareem marso wixii aad heli kartid maradaada yartaa dhaqo marka gurigaaga lagu imaado waxaaga ku dhaqan oo meeshaada ku nadiifsanaa la rabaa waa dhamaatay laakiin markii ninkii soo galo dagaal iyo candhuuf iyo kabtuuro iyo guriga ka baxay bismillah ma dheeda waxa la dhahay wiila hebel gurigiisa waa ka guuriyo gobolka loo guuro maxaa daare xaaskiya soo burisa markasta waa la soo buriyaa ilaahow wax aan nagu buriyo iyo waxaan dad ku burina ilaahow habana tusinba ilaahow guryaheena khayr dhaxdhig ilaahow nabad dhaxdhig nimanka la burinayo waa ceeb la iska dhaafo gabdhaha guriga laga soo burinayo waa ceeb la iska dhaafo dadka way isdagaalayaan ilaahay buu nacban yahay furitaanka ilaahay wuxuu yiri waa la isfuri karaa laakiin waa waxyaalaha uu nacban yahay laakiin gabadha guriga laga soo burinayo ka soo buri ninkeeda wiilka naagta waa guriga ka soo burisa acuudu billaahi minash shaytaan rajiim bismillaah ilaahu guryaheena khayr dhaxdhig ilaahayo guryaheena barwaaqo dhaxdhig ilaahu guryaheena jaceyl dhaxdhig ilaahu guryaheena diin
aan ku dhaqanno oo nadiif ah oo xalaal ah ilaahu na tusi aamiin yaa rabbi nimankeena aan dhaqanno guryaheena aan nadiifsano balaayada wareegiisa ka cuudubilayso indhaha la dhaha waa la iska xiraa dhagahana cub aa la geliyaa sida dadka qaarkood aadan oo ku dhibaya aadan u arkin oo dhagahana hadalkooda aadan maqlin guri haddaa rabtid inaad dhaqatid oo gurigaagan rabtid inaad janno ka dhigato dadka xasinimada kugu wadaan iyo buuq iyo ninkaagii adigu soo dhexgelinayo indhahana ka xiro nikaaba ka saaranaysaa nikaab kii indhaha la saaranayo labada dhagoodna cub waxay dhahaan suufa la dhexgeliyaa ninkaaga markuu guriga kuu imaanayo waxaaga dhan waxaa la rabaa qalbigaaga iyo maskaxdaada inay nadiif kuu noqoto laakiin waa dagaaltama gabar hebel saan soo tir ninkeeda kan u sameey kaasa ka dhacay ilmihiin waa kaa dayacmayaan adigana gurigaaga iska dumaysa gabdho badana guryo soo dumiyeen kuwa kaletana ay u jiifaan ee gurigood dhaqanaya saan ninkeyga soo dagaalna irida ka bixi baastarka aa lagu leeyahay iyadana ninkeeda la jiiftaa barkinteeda u dheeraysan baalkiisii carfisanaysaa yaa laga aqbalin yaa laga aqli badinin ee gurigaaga dhaqo waxyaalo waxaa jiro laysoo adkeysan karo gurigaagana janno oga dhigan karto 2 koob haddaa haysata 2daada kooba dhaqanaysaa iyakoo nadiifa miisa saaranaysa ama dhulka saliga haddii ka badan ay haysatin gurigaaga ubaxaasaas ugu sharaxanaysaa waxaa haysato maasha allah tabaaraka allah laakiin marka haddaa niida u sheegato wax u samaysato gurigaaga lagaa soo burinaa adigna aqliga aa u dhigatid haye abbaa saasuu ii gala ma ogtahay saasuu ii dhahay ma ogtahay halagaa hoos baxa bixiyo see camal suunkaaga xiro istoosiyaan ku dhah rajistiinadaada jig dheh maasha allah tabaaraka allah marka maantaasaan rabay inaan ka hadlo gurigaaga janno waa inaad ka dhigato adigana ka dhigi karo yaana aqligan lagaaga baxsanin waxaa haysato nadiifso ninkaaga guriga soo galana kusoo bood koobkiisa biyaha diyaarso kilkilahaaga nadiifa afkaaga caday maxay timaha shalayso malqabadaada dhag saaro ilaahu maa barfuun yar haysata ama dhaladii barfuunka dhamaada xataa geesaha ka tirtiro ee dhagaa gadaashiisa ii marso adigoo idab laha lagu mariyo markasto lagu imaado adoo ninkaaga ku jecela kaa tago shaqada ku aadadana kuu soo noqdo insha allah tacaala afkaagana yuu ku ceelin markasta idin dhaha afkiina yuu idin ceelin duceyso 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 markaad duceysato dhahdo ilaahu gurigeena kheyr dhex dhig ninkayga baari iiga dhig ilmahayga baari iiga dhig ilaahu anigana xaas fiican iga dhig ilaahu naag fiican iga dhig ilaahu hooyo fiican iga dhig ilaahu aabo fiican iga dhig wax kasta ilaahana siinaya insha allah gurigaaga u duceey guri barwaaqo iyo kheyr iyo qurux inuu aad family ku korsatid maanta taladayda saasay ahayd jazaaka allah kheyr saa ila socotiin salaamu calaykum walaalaha malabkeena raadinaya waa kanaa Carmel Mall 221 Abay Fatima dukaankeeda aa ka helaysaa Minnesota maasha allah waa 221 second floor Carmel Mall